wada xasuuqnay wala dhuxushu may noqon maya 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 qiimihii xagaafnay xalifku yamudhale maya 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 intuu xalku dhow yahay kawatooba xumaho xanaane deegaanko xakame waxyeelada xanaane deegaanko xakame dirti wada xasuuqnay wala dhuxushu may noqon maya 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 qiimihii xagaafnay xalifku yamudhale maya 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 intuu xalku dhow yahay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا بضع وضيع اللمانتين به كسر هذا متكم من برنامج الديجان كتلفزيون كجرك السومالي اللي أنا ومن تناقل عن دي سوق بينه حياة ذا الدوكي نور الشوق وحرم حجويني والعظيم حياة ذا الدوكي نور الشوق وحرم حجويني والعظيم toddobaadkan daawadayaal haddii ay baqadiro barnaamijka deegaanka telefishinka qaranka Soomaaliland waxaanu ku soo qaadan doonaa heshiiskii Paris ee isbeddelka cimilada oo lagu tira jiro sidii loo dhaqangelin lahaa iyo xubintii ay ugu magac darnay bilicda caasimadda oo toddobaadkan uu marti ku yahay wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka mudane Cali Xuseen Ismaaciil Cali Shombe حياة الدوكي نور الشوق وحرم حجويني والعظيم حياة الدوكي نور الشوق وحرم حجويني والعظيم بنكيلو حدينيا waxaa la gaadhay waqtigii la fulin lahaa heshiiska ay dowladaha waaweyn ku saxeen magaalada Paris kaasoo la isku raacay in hoos loo dhigo heerka wasakhowga hawada iyadoo guud ahaanba waddamadii heshiiska Paris ay isku raaceen in heer kuleylka hoos loo dhigo Patricia Espinosa oo sarkaal sare oo ka tirsan ururka qaramada midoobay iyadoo ka hadlaysay heshiiska Paris iyo saameyntiisa waxay sheegtay in waqtiga la gaadhay xilligii la dabaaldegi lahaa isla markaasna si garasho iyo deegaan ku jirto loo fiirin lahaa waajibaadka horyaala dalalka heshiiska saxeexay talada caanka ay ku tahay magaalada Paris ee Eiffel Tower ayaa laga shidi doonaa nalalka midabka cagaaran iyadoo taas hordhac looga dhigi doono shirka ka furmi doona magaalada Marrakesh oo isugu iman doonaan wufuuda ka socda wadamo tiradoodu dhan tahay 200 wadan iyadoo wufuudahaasi ay diiradda saari doonaan sidii loo hirgelin lahaa heshiiska taariikhiga ee Paris iyadoo si gaar ah loo eegi doono ballanqaadida ay sameeyeen wadamada dhinaca warshadaha ka horumaray ee ahaa inay hoos u dhigaan heerka wasakhowga ee hawada ku sii daayaan dib u eegis uu sameeyay ururka qaramada midoobay ayaa sheegtay inuu jiro hoos u dhac ku yimi heerka hawada si wasakhoobaysa iyadoo taas ay ka dhalatay baa la yidhi ballanqaadkii ay sameeyeen wadamadii saxeexay heshiiska inkastoo la sheegay in aan weli la gaadhin heerkii la rabay dadka ka faallooda arrimaha deegaanka ayaa sheegay in hirgelinta heshiiska Paris ay qaadan doonto wax ka yar hal sano kadib markii la saxeexay halka ay ku qaadatay heshiiskii ka horreeyay ee Kyoto Protocol ee la dhaqangeliyay muddo 8 sanadooda iyadoo sidoo kale heshiiska Paris uu yahay heshiiskii ugu horreeyay ee ay ka midaysan yihiin wadamada horumaray iyo kuwa faqiirka ah iyagoo isku raaceen wax laga qabto cimilada isbedelaysa si kastoo ay tahay ururka qaramada midoobay ayaa iyagu xoogga saaraya sidii ay wadamada caalamka ugu khasbi lahaayeen inay fuliyaan heshiiskan iyadoo ay ku dadaalayso inuu noqdo heshiis sharci oo dhaqan kala dhinaca kale doorashada waddanka Mareykanka ayaa la saadaaliyay xilligii hore inay saameyn ku yeelan karto heshiiska iyadoo labada musharax ee ku loolamay jagada madaxweynenimo ee Mareykanku ay ku kala aragti duwanaayeen heshiiska Hillary Clinton musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee dalka Mareykanka ayaa iyadu taageersanayd heshiiska Paris iyadoo madaxweynaha waddanka Mareykanka ee xilligan jagada sii haya ay ku taageersanayd inuu hoos u dhigo heerka wasakhowga Mareykanku hawada ku sii daayo halka uu musharaxii la tartamayay ee haatan loo doortay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu isagu ka soo horjeedo heshiiskaasi Jim Yong Kim madaxweynaha banka adduunka ayaa sheegay in marka la eego dadaalada la sameeyay waqtigii lagu guda jiray shirkii Paris iyo sidoo kale ficilada dhiirigelinta la sameeyay wali aan la gaarin higsigii ahaa in heerka kuleylka hawada hoos loo dhigo 1.5 centigrade degree ilaa la kordhiyo xawaaraha uu ku socdo hirgelinta heshiiskaasi si loo gaaro buu yiri cabirka loo baahan yahay in la gaaro
sidoo kale waxa uu sheegay in lala yimaado dadaal marka la isugu yimaado shirka Marrakesh. shirka ay wadamadan isugu iman doonaan magaalada Marrakesh ayaa noqon doona mid ay diiradda ku saari doonaan sidii dib loogu eegi lahaa waxyaabihii lagu heshiiyey heshiiskii Paris. hawshuna runtii dhismaha noloshay kaba haddaba bal markan aynu daawadayaal eegno qodobadii lagu heshiiyey heshiiskii Paris. qodobada ugu muhiimsan ee la isku raacay heshiiska Paris waxaa ka mid ahaa in si weyn hoos loogu dhigo heerka wasakhowga ay warshaduhu ku sii daayaan qaybta dambe ee qarnigan aynu ku jirno, in sidoo kale heerka kororka kuleylka ee meeraha aynu ku nool nahay lagu ilaaliyo koror ah 2 centigrade ama 3.6 Fahrenheit, in 5 sannadoodba mar dib loo eego horumarka uu sameeyey heshiiskan iyo sida ay u fuliyeen wadamada saxeexay, iyadoo la isku raacay in wadamada soo koraya la siiyo adduun lacageed oo dhan $100 bilyan marka la gaaro sanadka 2020. heshiiska lagu gaaray magaalada Paris ayaa ahaa mid taariikhi ah, balse dadka u dhaqaaqa dhowrista deegaanka iyo khabiirada aqoonta durugsan u leh deegaanka ayaa sheegay in guusha heshiiskan uu gaaro ay ku xidhan tahay hadba sida ay u dhaqangeliso dowladda Mareykanku, iyadoo madaxweynaha haatan loo doortay dalka Mareykanka Mr. Donald Trump uu sheegay inuu waxba kama jiraan ka dhigi doono heshiiska Paris, isla markaasna lacagaha uu ku taageeriyay heshiiska Paris uu ku bedeli doono inuu wax ugu qabto shacabka Mareykanka sidii ay u heli lahaayeen biyo iyo hawo nadiif ah. dhinaca kale musharaxii la tartamayay Hillary Clinton ayaa iyadu fikirkaasi ka duwan aaminsanayd, iyadoo sheegtay in isbeddelka cimilada adduunku ay khatar ku tahay amniga Mareykanka, isla markaasna loo baahan yahay in la soo saaro sharciyo adag oo la duldhigo warshadaha keena wasakhowga. hawshuna runtii dhismaha noloshay kaba geesta kale iyo barnaamijka deegaanka telefishinka qaranka Somaliland daawadayaal waxaynu ku soo qaadan doonaa xubintii aynu ugu magac darnay bilicda caasimadda. toddobaadkan waxaa marti ku ah xubintaasi wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka mudane Cali Xuseen Ismaaciil Cali Shombe oo ka mid ah guddida bilicda caasimadda ee madaxweynaha Somaliland uu magacaabay. horeysan la yeelanay wasiirka qorsheynta oo arrimaha bilicda la xiriira ayaa ugu horeyntii bal waxaan weydiiyay inuu uga warramo qorshayaasha guddida bilicda caasimadda Hargeysa uga dejisan sidii wax looga qaban lahaa bilicda caasimadda. waxa ugu horeeya horta in wadooyinka halbowlaha la dhiso, imika waa doctor waxa soo dhamaatay tii xagga galbeedka waayo waa tii buurta kala jeexan sidii ahayd ilaa ay soo gaadho halkan looga beero jigjiga yar wadadu ay aad runtii u xumayd, taasoo dabeetana imika la dhamaystiray. waxa dabeetana imika loo wareegaya xaggan daanta kale airportka oo wadada halbowlaha runtii wadada muraayada oo dalka oo qofku markuu diyaaradda ka soo dego halka ugu horeyso arkay waa wadada laga soo galay magaalada, wadada airportka ilaa saldhigga dhexe la soo gaarsiiyo la isku xidho, taasaa la dhisaya. dabeetana waxaa ku xigaya wadooyinka kale halbowlaha ee wadada aadan hormarta eedna aadan dhakhtarkeeda iyo jeel dhakhtarka dabadiisa wadada marta, labada wada ayaguna ku xigaya. dabeetana intaa ka dambaysa si wadooyinku kala muhiimsan yihiin ayaa la sameynaya. waxaa kaloo markaa aanu doonayna inaan ku wargelino bulshada reer Somaliland in ay meelahan wadooyinka waaweyn halbowlaha oo aad moodo in meherado qaab daran ay ku haystaan ay dib uga guuraan, in aan hal mar walba askartu iman oo aan xoog ka qaadin, ay iyagu qurux bilicda magaaladooda iyo caasimadooda ay ka shaqeeyaan. waliba dadka reer Hargeysa ka shaqeysta meheradaha suuqa ku hoose iyo wadooyinka waaweyn. marka runtii waxaanu imika qorshayaasha noo yaala taasaa ka mid ah sidii balbasaskan loogu heli lahaa meel walba istaagaya wereeriye dhulkii ayaa iyadana aanu ka wada shaqeynaa guddida haddii aanu nahay oo go'aanaanu ka soo saarnay dhawaan. waan gartay marka laga tago qorshaha wadooyinka ee guddidiina bilicda iyo dowladda hoose caasimadda Hargeysaba idin dejisan in wax laga qabto bilicda caasimadda, maxaa kale ee qorshayaale ee jira ee la rabaa in bilicda caasimadda kor lagu qaado? maxaa yeelay wadooyinku maaha waxyaabaha kor u qaaday bilicda caasimadda. waxa si aad ogtihiin waxa jira mashruuc walbaanka iyo dowladda hoose Hargeysa imika wada la urban purification program or urban redevelopment program
oo lagala shaqeynayo sidii loogu sameyn lahaa biyo mareenadii iyo drainageski in loo sameeyo dump siteski iyo meelaha xashiishka lagaga guri lahaa in kuwaana la sameeyo waa kamid waxa kaloo iyaduna kamid ah in ciribtirka bacda oo runtii madaxweynuhuna digreeta ka soo saaray dhowr amara laga soo saaray wasaaradda dakhliga ka soo saarto goboladana loo gaarsiinay dhawaan caasimadana runtii tallaabooyin badan laga qaaday laakiin dalka ku soo gasha sharci darraa oo wadamo aynu jaar ahayn naga soo gasha kantaroolada iyo xuduudeena faransi qalaadaho sharci darraa uga soo gasha marka dadka reer Soomaaliland waxaan leenahay haddaad eegto bacdan yare aad arkaysaan ciida waxay ku jirtaa aanay ciid cunin muddo 500 sanadooda 500 sanadood ciid ma cunayso marka waxay ka horteegaysay abaarahan inagu soo noqnoqonay waa deegaanka ay xumeynaysa abaarahan ay keenaysaa biyo la'aanta keenaysaa roob la'aanta keenaysaa waxay keenaysaa daaq la'aanta marka in meel looga soo wada joogo dawladdu indhaha dadka waa sida nabadgelyada oo ilaalina inay ula mid noqoto oo iyadana looga ilaaliyo bacda oo qofkii bacsita in dadku ay soo sheegaan way ganaax baa lagu ridaya hadii ka iibsaday lagu qabto ma ha ka iibinayo kaliya ka iibsaday hadii lagu qabtay isagana waa lagu ganaaxaya in wasiir wadamo badan oo caalamka baad ku soo noolaatay ama soo joogtay muddo dheer bal waxaad ka warantaa qaabka loo ilaaliyo bilicda magaalooyinka caalamka ee aad ku soo noolaatay kow cid ugu horeysa waa shicibkooda waayo dawladda iyo shaqaaluhu waxay gaaraan in go'an meelo yaryar waxa loo dhigaa tusaale waxa ku soo qaadaya gidaar walba ama aqal walba hortiisa waxa yaala tanakadii xashiishka marka qofku gaarigiisu ku sidaya bacdi yareeda warqadii yareeda oo raashinka ka laabtay ama uu faraha iskaga biyay ama sigaarkii waa cabay dabadiisa wuxuu sidaya maanta dhan buu sidaya ilaa intuu meel la helayo halka inaga bacdi kolka caagada biyaha laga cabo daaqada laga tuuray iyadoo laamida la marayo marka waa in la wacyigelin dadka ay qaataan oo ay dadku ogaadaan in iyaga ka baabaaso kama hadlayno mustaqbalka iminka maanta jooga waxaan ku hadlaynaa 500 sanadood ama 200 sanadood tafiirta aynu ka tagi doono inaynaan ka sii baabin deegaanka ku noolaanayeen waan kartaa waxyaabaha kale soo ran karta caqabad bay ku yihiin bilicda caasimadda oo kale ee loo baahan yahay in xukuumadda iyo shacabka intuba iska kaashadaan ee tilmaami karto maxaa kamid ah dadku cashuurta saan u bixiya oo loo heli karo waxqabadka dawladdu wuxuu ku xidhay cashuurta dadku bixiyo marka muwaadinka wanaagsan ee dalkiisa doonaya inuu jecel dalka ninka xoreynaya qorigiisa tay ka cashuurta bixiya way isku mid way diintu marka deegsi jihaadka ka hadlayso kamaalka bixiyo horeysiisa marka cashuurta in la bixiyo hadii aad cashuurta la baxsato cashuurta kugu waajibtaad bixin weydana xoolaha shaqaysanaysa waa xaraan waan gartay marka deegaanka oo kale aynu ka hadlayno haatan iyo xilligan la joogaba waxa dhibaatooyin badan la kulma dhirta dhuxulaysi fara badan baa jira in waxyaabaha ugu badan ee maanta dhibaateeyay deegaankana waa goynta dhirta qoyan Hargeysa hadii aanu eegnana waxa jira dhir fara badan oo caan ah oo magaalada Hargeysa dhexdeeda ku taalay oo kale oo dal la jaray ama dhismayaasha lagu baneeyay ama siyaabo kale ba dhibaatooyin kale oo la kulmay bal waxaad ka warataa qorshayaashiina gudida bilicda hadii aad tihiin in magaalada la dhireeyo maadaama quruxda iyo bilicdana qayb ka tahay dhirtu runtii way ku jirtaa waa deegaan ku arko halkan dhakhtarka hortiisa iyo kastanka iyo wasaaradda boosaha iyo inta horteeda waa dhirta lagu beeray marka waa qorshe jira in wadooyinka waaweyn halbowlaha dhirta loogu beero marka qof waloo reer Soomaaliland waxaan ku boorinayaa inuu gurigiisa geed ama laba ku horbeero marka waxay noo dhirtaas waxay keenaysaa biyihii ku bata roobkii soo jiitaan waxay keenaysaa qurux waxay ka mid ahaan jirtay magaalada Hargeysa magaalooyinka Afrika ugu dhirta badan leh sanadihii anagu aanu koraynay aanu yaryareen waxay aad ugu dhirtu geed laga maraamay jirin meel laga mar halkan shacabka la yiraahdo wuxuu ahaa meel wada dhira waxaan oo buuliyo maqaadina kuma oolin marka in dadku ay dhireeyaan way Hargeysa waa lagu tartami jiray dhirta marka in imika beerta xuriyada waa lagu bixiyaa dhirta ama qiimo jaban baa laga siinaya inuu qof walba gurigiisa ku beero dhirta wadada horumarta dhirta ku beero kaabada uu ku qurxiyo oo inta gurigiisa wadada u dhaxaysa uu ka dhigay isagu sibir way meheradiisa uu haystay boorka ka ilaalinaysa marka waxyaabaha caafimaadda uu keenayo bilicda waxaas ka mid ah waan gartay bacda oo aynu ka hadalnay madaxweynaha Soomaaliland digreeto soo saaray waa lagu joojiyay laakiin waxyaabaha kale caqabada ah waxa kamid ah in caagadaha biyaha laga cabo oo si rafud loo tuuro bal waxaad ka warantaa gudi ahaan inay wali soo hadal qaadeen wax qorshe oo ku aadan sidii wax looga qaban lahaa caagadahaasi tirada badan ee meel walba yaala bilicda caasimadda hoos u dhigay runtii waan isla soo qaaday go'aana ka soo baxay waxa kamid ah go'aanada ka soo baxay in cashuurta xashiishka lagu daro way dawladda hoose bacdi lagu daadiyay imika qaadko kale kastanka kala bar wuxuu qabtaa u saaran mirdu horo jaadaba in xashiishkii jaadka ay dawladda hoose soo saaran in sidoo kale dawladda hoose ay soo saarto in go'aan soo saarto wasaaradda dakhliga hirgeliso oo ah in baabuurta in baxalii caagadaha biyaha in cashuurta lagu soo rogay cashuurta ay bixiyaan mooyaan way cashuur dhaafayntooda badan ku keenaan
waxa weyn qalabkii ay warshadaha cashuuraha shanta sanadood la sii ku kana marka bal in kartoonkiiba ay lacag yaroo xad yaroo koobano ay qaadi karayaan oo aan culays ku ahayn dadka iibsanaya dadka sukeenayaba oo dawladda hoose u fasaxa inay qorto shaqaale xashiishka ka ururiya magaalada meelaha lagu daadiyo oo la geeyo recycling taasaan isla soo qaadno go'aan ka gaadhnay waan ka qorshayaashiina ma ku jiraan dib looga faa'iideysto kala cagadaha biyaha iyo sharaabka laga cabo lagu tuuro meelaha runtii recycling waayo ganacsatada lafteeda ku boorinaya inay keensato warshadihii waayo imka markii bacaha la joojiyay inama keenay warshad sameynaysa kiishash aan bac ahayn oo la isticmaali karo muddo badan saasoo kale bacahan caagadaha waxa laga sameyn karaa haddii recycling la geliyo ama dib loo farsameeyo dib loo warshadeeyo marka inay ganacsatada lafteedu maal geliso oo ay dawladda hoose iska kaashadaan ganacsatada dawladda hoosena dhulka ku deeqdo laga dhisay warshada ganacsataduna ay keento qalabkii iyo mashiinadii waa tahay ugu dambeyn saacada wasiir waxaan doonayaa inaad ka faa'iideysato fursadda xubinta bilicda barnaamijka deegaanka idaacadda iyo telefishinka qaranka Soomaaliland toddobaadkan oo aad marti ku taado maxay noqonaysaa fariinta bilicda caasimadda ku aadan ee aad bulshada Soomaaliland ku daawanaysa ama ku dhageysanaysa gaar ahaan bulshada reer Geesaha u dirayso waxaan oran lahaa dadka magaaladu waa magaaladeeni xashiishka iyo caafimaadkeena wax yeelaysaa qurux darideedu inaga waxayna yeelaysaa waa moral laguma noolaan karo gurigaaga maalinta xashiishka hor yaalo sida uu niyada kaaga dilayo magaaladeena kolka suuqa subaxdana kaaga dilaya marka waa aqalkeeni weynaa aan quruxdiisa wada ilaalino aad buu daawadayaal mahadsan yahay wasiirka wasaaradda qorsheynta Soomaaliland mudane Cali Ismaaciil Jirdi Cali Shombe oo marti ku ahaa xubinta bilicda caasimadda ee barnaamijka deegaanka ee telefishinka qaranka Soomaaliland حياتنا أدوكي ونولشوك وحرمضا حجي ويني ونعضلين حياتنا أدوكي ونولشوك وحرمضا حجي ويني ونعضلين دنكيلو حدلينيا todobaadkan daawadayaal intaas baan kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii deegaanka oo aynu kusoo qaadanay heshiiskii Paris ee isbeddelka cimilada oo lagu tala jiro sidii loo dhaqangelin lahaa iyo waliba xubintii bilicda caasimadda oo marti ku ahaa wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka mudane Cali Xuseen Ismaaciil inta barnaamijkan dhigeeyay marka lagu kulmi doono ta ka horeysa waa sawir qaadista Maxamed Saleebaan Maxamed iyo soo jeedinta iyo soo saarista barnaamijkan aniga Cabdicasiis Xaydin Cilmiye dhamaantiin waxaad ku dhaafayna inta barnaamijkan dhigeeyay marka lagu kulmi doono ta ka horeysa nabadgelyo wada xasuuqna wala dhuxushu may noqon maya qiimihii xagaafna xalafku ya mudale maya intuu xalku dhow yahay xanaane deegaanku xakame waxyeelada xanaane deegaanku xakame waxyeelada wada